هندسة الشرعيات معها أين قضوا بدل كرنما يعني حلك إن سعرا هشيس الدولة لا سوق شيء عدين تاسم بربينا سمايو عدين هذا وحين إنه هذا كوفة غير كرنما هي دني ما إنه وجدت برلمان كواحد الله وكنا هذا إما يوجي كيني يعني لا صحيح عنه waxay baarlamaanka in la keeno oo la yiraahdo dani ma inoogu jirtaa lama keenin markii dambana uu inagu socday because wuxuu inoogu socday Vienna Convention on Law of Treaties waxa hadaanad ku qorin baarlamaanka hal geeyay hadda sharciga Turkiga heshiis walbo la galo waxa qasaba in baarlamaankooda la geeyo wasiir ma geli karo innaga qaar badan baa iska soo galo hadhowta dhibaato badan hadda qaar la inoo haystaa wasiirra intay galeen ba hadda dalka loo haystaa because baarlamaanka lama keenin oo baarlamaanku mu qiimeyn in dani inoogu jirto marka heshiiska marka la gelayo haddii lagu qoro subject to ratification waa in baarlamaanku ansixiyaa convention kaliya maaha waxaynu heshiis walba oo dawladdu soo gali karto waa lagu qor hadaan lagu qorin oo executive ku gasho sharci caalami oo la yiraahdo Vienna Convention on Law of Treaties baa jira kaas ayaa inagu dhaqaya oo waa ku qasab dawladda wixii ka soo baxa adduunka sharciga caalamiga waa ku qasab ama baarlamaan lama keenin lama dhihi karo hadda sharciga MOU-ga International Court of Justice markuu eegay burinta aan burinay baarlamaankii aan ku jirnay buriyay waxba kama bedeline inaynu xaq u leenahay delimitation case-ka ayuu maxkamaddu goosatay maxkamaddu waxay u aragtay in case-ka maritime delimitation-ka marka la camadeynayo badaha waxa la yiraahdaa delimitation af Ingiriisiga ayaan xaq ay u leeyihiin balay oo Kenya rabtay inay naga hor istaagto xaqa MOU-ga awgeed marka aad iyo aad bay u muhiim tahay shuruucda dalka in la keeno halkan laga baaraandogo guddigu eegto baarlamaanku ansixiyo laakiin wax lagu faygaraya ma hay ogaada wabillahi tawfiiq